Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada dhamaantiinba asaxaabta ku xidhan kaabi technology and language. Waan idin salaamaynaa salaanta islaamka. Mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada barashada luqadda Englishka qaybaheeda kala duwan. Mowduucyadii taxanaha ahaa mid ka mid ah ayaan qaadanaynaa maantana. Kusoo dhawaada Casharka Maanta Waa xiisa gaara aad iyo aad u xiisa mudan. Meel kasta ku sugan tihiin waxaad nagala socotaan Facebook page Kaabi Technology and Language iyo YouTube channel Kaabi Technology and Language. Dhamaantiin meel kasta ku sugan tihiin waxaan idinka codsanayaa inaad mowduuca aad like garaysaan videogana, sidoo kale channelkana aad subscribe ku samaysaan, videogana aad like garaysaan, isla markaana aad share garaysaan oo la wadaagtaan asxaabihiina kale. Dhamaantiin waan rajaynayaa inaad wacan tihiin meel kasta ku sugan tihiin. Mowduucan maanta qaadan doono aad iyo aad buu xiisa badan yahay. Waxa weeye lesson 62 cashka 62. mowduucan waa topic mowduuc weeye. mowduucaas wuxuu ku saabsan yahay insha Allah waxaan rabaa inaad adigu ii soo sheegto idin ilaahay. anigu waxaan ku sii magacaabayaa oo kaliya too aan kugu sii sheegayaa inuu mowduuc yahay. salaajkeed la socod wanaagsan intaanan bilaabinin videoga like garay please channelkana subscribe ku samay, sidoo kale Facebookna naga soo follow garay. waad mahadsan tahay inta hadaad samaysay daawasho wacan. Today I went to venture on suggesting here my attitude towards education. Although I have no confidence in my little humble knowledge to satisfy your curiosity, but I should endeavor to use my imagination. Education is the process which is intended to impart students to get knowledge, develop their skills, and at the same time to gain a full experience. The aim of education is to cultivate the learner's mind to be a civilized one. Education is the passport to success, but it is an easy way to obtain a good job, recognition, and prestige. In this modern world, a person without education is considered as unfortunate victim in adverse circumstances which deprive him to gain his opportunity in the world. Today maanta I went waxaan doonayaa to venture on inaan isku biimeeyo suggesting oo aan soo jeediyo halkan ka soo jeediyo my attitude fikirkayga towards ku aadan education waxbarashada. Although inkastoo I have no confidence aanan kalsooni ku qabinin in my little and humble knowledge aqoontayda yar ee hooseysa, inkastoo aanan kalsooni badan aanan ku qabin to satisfy inaan idinku qanciyo your curiosity ogaanshihiina inaan idinku qanciyo, but laakiinse I should endeavor waxaan ku dadaali doonaa to use inaan isticmaalo my imagination aragti qiyaas inaan isticmaalo ayaan isku dayi doonaa imagination qiyaas. Education waxbarashadu waxa weeye the process waa habkaasoo is intended loogu talagalay to import in loo gudbiyo students ardayda to get say uga helaan knowledge aqoon iyo cilmi ay uga helaan, isla markaana laajigeed develop ay ku horumariyaan their skills xirfadahooda ay ku horumariyaan, at the same time isla markaana gain ay ka helaan ama ka dhaxlaan a full experience khibrada buuxa ama wax ay aragnimo buuxda ay ka dhaxlaan. The aim ujeedada of education ee waxbarashadu waxa weeye to cultivate in lagu beero the learner's
mind maskaxda ardayda to be inay noqoto a civilized one mid ilbaxa inay noqoto. Education waxbarashadu is waxa weeye the passport waa passportka to success ee guusha because maxaa yeelay itiyada oo waxbarashada ahi is waxa weeye an easy way hab fudud ayaa obtained lagu kasbanaya ama lagu helaya obtained lagu helaya a good job shaqo fiican lagu helaya recognition aqoonsi lagu helaya and prestige isla markaana iyo sumcad lagu helaya. itiyadu is an easy way waa hab fudud oo obtain lagu helayo a good job shaqo fiican recognition aqoonsi and prestige iyo sumcad iyo sharaf lagu helayo. In this modern world adduunyadan casriga ah ee person qofka without education bilaa waxbarashada ah is considered waxa loo tixgeliyaa ama waxa loo yaqaanaa as unfortunate victim inuu yahay dhibane aad iyo aad u nasiib daran in adverse circumstance kaasoo ay duruufo adadagi duruufo adadagi which kuwaasoo deprived ay ka leexiyeen ay ka duween him isaga to gain inuu helo his opportunities janisyadiisii ama fursadihiisii in the world oo adduunyada ku lahaa inuu helo ay ka leexiyeen. Okay, today maanta haddaan dib marka la ugu celiyo saaxiibayaal haddii ereyada adadag oo dhanna aan isir dul taagno iminka hadduu aanad si fiican aanad usan u fahminin aan dib kuugu celiyo. Today maanta anigu waxaan doonayaa doonitaan arday baa la soo kiciyay dabadeedna halkaas la taagay ardayda horteeda badiyaa ardayda waxa la yiraahdaa the practice sameeya sidoo kale mowduucyo kala duwan soo jeediya marka arday waxba soo diyaarsanaan mowduuc soo diyaarsanin ayaa la kiciyay halka loola boodo la yiri istaago waxa weeyaan wuxuu ka hadal bal adigu aragtidaada bal ka hadal marka qaabkan oo kale ayuu u hadlay. Today maanta waxaan doonayaa to venture on inaan isku biimeeyo buu yiri suggesting soo jeedinta aan soo jeedinayo oo halkan waliba ka soo jeedinayo in my attitude fikirkayga towards ku aadan education waxbarashada. Marka venture on isku haligaad weeye isku biimeyn suggesting soo jeedin weeye attitude ku aadan aragti fikrad waa fikrad attitude fikirka qofku rayiga uu qabo ayaa la yiraahdaa attitude sidoo kale towards ku aadan macnaha ku socota education waxbarashada. Although inkastoo buu leeyahay anigu have no confidence aanan kalsooni ku qabin in my little yar weeye confidence kalsooni little yar an humble ee hooseysa knowledge aqoontayda yar ee hooseysa inkastoo aanan san kalsooni ku qabinin to satisfy si aan idinku qanciyo your curiosity ogaansho doonistiina waxa ogtihiin oo doonaysaan curiosity ogaansho doonis waxa uu qofku u ogyahay haddana uu doonayo inuu ogaado sida uu qofka kan u sheegi doono but laakiin se uu leeyahay I should endeavor waxaan ku dadaali doonaa ku dadaalid to use inaan isticmaalo my imagination aragti inaan isticmaalo qiyaas inaan isticmaalo ayaan isku dayi doonaa. Education waxbarashadu buu leeyahay is waxa weeye process waa habka which habkaasoo is intended loogu talagalay to import in loo gudbiyo intended loogu talagalay import gudbin students ardayda to get say uga helaan knowledge cilmi iyo aqoon ay uga helaan isla markaa cilmiga iyo aqoonta ay ka helayaan ay ku develop gareeyaan oo ku horumariyaan their skills xirfadahooda ay leeyihiin skills xirfada uu qofku uu leeyahay at the same time isla markaana ama isla waqtigaana gain ay ka helaan ama ay ka dhaxlaan ee full experience waaya aragnimo buuxda ama khibrad buuxda oo ay aqoon ay u leeyihiin. wuxuu leeyahay daa'im ujeedada of education waxbarashadu is waxa weeye to cultivate in lagu beero dallaanas mind maskaxda ardayda in lagu beero to be inay noqoto a civilized one mid ilbaxa inay noqoto. Education waxbarashadu is the passport waa passportka to success ee guusha waa passportka guusha because maxaa yeelay itiyadaas an easy way obtained sababtu waxa weeye si fudud ayaa lagu helayaa obtain helitaan lagu helayaa good job shaqo fiican baa lagu helayaa
waxaa lagu helayaa recognition aqoonsi ayaa lagu helayaa and prestige iyo waliba sumcad ayaa lagu helayaa prestige sumcad recognition aqoonsi good job shaqo fiican obtain helitaan shaqo fiican ayaa lagu helayaa in this modern world adduunyada casriga modern casri ah a person qofka without education bilaa waxbarashada ah is considered waxa loo tixgeliyaa waxa loo garan og yahay loo yaqaanaa as sida unfortunate victim nasiib dhibane aad u nasiib daran unfortunate bilaa nasiib ah victim dhibane bilaa nasiib ah sideedoo kale in a adverse kaasoo ay adverse adag circumstance duruufo adadagi deprivied ay ka leexiyeen duruufaha adadagi ay ka leexiyeen ay ka duween duruufo adadagi maxay ka duween him isaga waxay ka duween to gain inuu helo his opportunity fursadihiisii jaanisyadiisii uu ku lahaa in the world adduunyada ku lahaa qof walba fursad ayuu adduunyada ku leeyahay waa inaad khibradaada aad dhistaa waa inaad isbartaa inaad wax soo gudbin karto waa inaad isbartaa inaad aad aqoontaada iyo skillska xirfadda aad leedahay aad meel la tegi karto education waxa la yiraahdaa ama qof wax bartay waxa la yiraahdaa qofka xirfadda uu leeyahay isticmaali kara oo dadka ugu shaqeyn kara isaguna isla markaa wax isku tari kara naftiisa ku tari kara haddaad jaamacadda ka soo baxday oo aanad soo gudbin karin wax yar ama wax kooban isla markaana aanad gaari karin waxyaabaha doonayso kuma suurtagelayso inaad isticmaasho haween aad taada aqoonyahan aad sheegato marka mowduucan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa akhrinta haddaan mar idin ku celiyo today I wanted to venture on to suggest my attitude towards education although I have no confidence in my little and humble knowledge to satisfy your curiosity but I should endeavor to use imagination. Education is the process which is intended to impart students to get knowledge, develop their skills and at some time gain a full experience. The aim of education is to cultivate the learner's mind to be a civilized one. Education is the passport to success because it is an easy way to obtain a good job, recognition and prestige in modern world. A person without education is considered as an unfortunate victim in adverse circumstances which deprived him to gain his opportunity in the world. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduucan kaaban intaan mowduuca xiga aan ku kulmi doono saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa inaad videoga like badan ku samaysaan isla markaana subscribe channelka ku samaysaan nagana soo follow garaysaan Facebook page-keena Kaabe Technology and Language waad ku mahadsan tahay saaxiibadana la sii wadaag wixii aad aragti qabto commentiga ayaad igula wadaagi doontaa idan ilaahay buugan iyo casharadan oo taxane ah oo aad u waaweyn oo u badan oo haddaad buugta u baahatana waad ila soo xiriiri kartaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay haddaad halkan ila soo gaadhay wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.